ninkan wuxuu wataa qori. booliska ayaa arkay, gaariga ayuu istaajiyey, ninkii ayuu wuxuu ka soo bixiyey qoriga gadaal ugu jiro saad u jeedaan. qoriga ayuu ka qaaday booliskii, qoriga ayuu testigareeyey ama uu baroobay inuu shaqeynayo iyo in kale sidaad aragtaan. kadibna wuxuu ku dhahay qorigan muxuu yahay, wuxuu dhahay wuu sharciyeysan. kadibna wuxuu ka qaaday sharciga qoriga. booliska wuxuu akhrinayaa sharciga qoriga inuu sax yahay iyo in kale saad aragtaan. ninkii iskama waalaayo, wax ma samaynayo. booliska qorigeena wuu hayaa, sharciga qorigana gacantuu ku hayaa. mujeedaa qorigii macala sharcigii uu celiyo. wuxuu dhahay waa ka diyaar shaabwa. booliskii wuu iska baxay oo ujeedaan, gaarigiisu iska galay. ninkiina qorigiisii macal sharcigiisa waa loo celiyey. marka waddankeena Soomaaliya wax sharci kama jiro horta. qof walba qoriga wataa, qof walba qoriga wataa. qofka jeen garay karo oo dhahayo qorigaaga ma sharciyeysan yahay keen ma jiro. goormaynu gaaraynaa muxaasiga sidaan oo kale in qofka qoriga laga qaado, laga testigareeyo, laysankiisa wixiisoo dhan la fiiriyo, kadibna dib loo siiyo. annaga Soomaalida ninkan haddeertaan booliska qorigu arkay. nin boolis oo Soomaaliya u lahaa oo qorigu arki lahaa. ninka meesha taagan haddeertaan qoriga laga qaadaya inuu cabeysto ayuu madaxa booliska fuji lahaa. waa isdifaacaya. boolis waa taa ma dhahay qoriga uu qaada rabiyo dhaha. booliskii waxbad ku bilaabi lahaa. laakiin ninkan iska ma waalin. qorigii booliska u socdo qoriga qaabtay. booliska taa qori muusan soo baxsan oo u jeedeen. qorigii soo meesha ugu jiro ayuu u tagay, qoriga uu ka soo bixiyey, uu ka qaaday. intaas wax dhaqdhaqaaq muusan sameynin. maxaa yeelay sharcigaa saas ah. marka Soomaalida haddeertaan ciidan ha ahaado ama military ha ahaado ama madaxweynaha ha ahaado, habkan ama shuruucdan goormaan gaari doonaa? ma isweydiiseen? magaalada AK47 lagu wataa, magaalada Dhashiika lagu wataa, magaalada Brown lagu wataa. goormaa qori yar la dagaalamay horta adiga? goormaa qori yar oo bistoolo aad dhihi kartaa maxaa asiga haye ma sharciyeysan tahay mise sharci ma aha? Dhashiikiyaaba sharciyeysanayninba oo magaalada maraa. xildhibaankii 20 Dhashiika wata. marka daawada barnaamijkan inaan kusii fogaado ma rabo. waxaan idin barbar dhigayay shuruucda adduunka ka jirta iyo tan Soomaaliya ka jirta. barnaamijkan halkaan hadda ila soo gaartay waxaa ka codsanaya inaad share, like, comment barnaamijka ka bixisid si uu meel fog gaaro. anigana waxay tahay dhiirigelin. mahadsanidin.